Yeah, yeah, looking out for the rollers, sipping whiskey from the solo, me sober. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا محمد سمو سيسي بوكسر وهذا مقال كان ما توحى هي إلى خصل وحي أنا أنكو خصله وحاجة على إذا كأنك خصش بدنا فيسبوك أيام وحن كثير صدا مخالة أو إيجا خص مخالة داسي مركي أنكو خصله وحاجة على هاي إن إذا الله خيب صدا ما أنت مخالك وحى وكسابسين هاي إن مخال كاسي أن فير صدا إسلا مركزنا reaction aan ka bixino aan isla qosolno hadii aad ku cusub tahay fadlan channelkayga subscribe share hadii aad rabtid in muuqaaladan oo kale aad aragtid fadlan gabaleelka taawsi aad muuqaalada dambe aad u aragtid hadii uu ku qanciyo muuqaaladan waa soo badinayaa like saar hadii aad ra'yi ka qabtidna commentiga hoos noogu soo dhaaf marka okay inta bilaawayna meeshaan ka bilaawayna وكاهي لقيتها ها لا صح عدت إركا ها وكاكي إركا gabadha maxay isku khulkhuluucinaysaa iyada markaa yani tiktok waaya malaha maxay isku khulkhuluucinaysaa ilaahay had ma fahmin ما اسم خداد ها اسم خداد ها. لا لك فوق شيء أنا كسوي لا لك شيء هذا فهمي معناه حوالي نك أو قدال كاميرا ذو هيا وسويره هيا إذا نخابك معناه سوير كله قلها يسوير أقوله سامرنا سنة إيه سامرنا سنة إيه سامرنا حوالي أنا أديك سوفيرنو يعمل الله هاي حاجة قاعدة شوف بدي لها بريانة كذا متى أنا إلهي بريو خات يعني يقول صور يقول صور يقول صور يقول صور هي قاعدة سبحان وارهاي ما دين مصورة قاعدة سبحان أما الجيلة أما الجيلة لا أما الجيلة أوكي لما أنا واي لما أنا واي Soomaaliya laga helaa nin hal xas biili karno xas laba guus أوكي تنكره Soomaaliya laga helaa nin hal xas biili karno xas laba guursado Soomaaliya laga helaa qof gaajada dhinto duugtiisa geel la qalo qof oo dad maskiin faqiir oo dhinto oo macnaha waxa waa dugtiisa in geel laga qalo waxa laga helaa Soomaaliya laga helaa لأنه خوف مركز دينت له وحب ترايان يعني مركي أسنولي هاي أو واحد سباهية واحد مسينايان رنت هذا مركي خوف كاس دينت أي مركزي واحد كسو سمينايان وعبد دينت بخوف كاس كمان مركز أساسي يرجيدا يعني سومال كليه لقى هلا ميل كلب لقى هلا Soomaaliya laga helaa qof aan hal qof iska celi kar laakiin toddobaatan ruux waxaan jabo Soomaaliya laga helaa dad luuqadooda ka faano balse luuqadaha shisheeye ku faano qof oo hal qof iska celi karin oo boqol qofood oo hanjabaayo waxa laga helaa Soomaaliya laga helaa sawir waxaad sheegtaa magaca dunida ugu weyn halkan magac ee dunida ugu weyn warkaan waxaa la dubin ayaad sheelayska rabaa maanta soo haddana dunida ugu waxaad sheegtaa magaca dunida ugu weyn halkan magac ee dunida ugu weyn ayaad sheelayska rabaa okay gabadhan su'aalan weydiisay waxaan dhahdii magaca dunida ugu weyn ayaa la iska rabaa marka su'aalan weydiisay marka su'aal furan meesha lagu soo qoray waxa lagu soo qoray su'aal furan waxa magaceedna waxa waaye ina Sheekh Axmed waxaan weydiisay magaca adduunka nagu soo celi maanta soo haddana noqonin xitaa insha Allah wad ka faa nagu soo celi waxaad sheegtaa magaca dunida ugu weyn Okay. halkan magac ee dunida ugu weyn ayaa halka magaca dunida ugu weyn waxa waaye Allah magaca Ilaahay waxa waaye magaca ugu weyn magaca Ilaahay waa asaa ugu weyn magac kale ma jirabo magac kale ka weyn ma jirabo su'aashaasi ani saasa aan ugu jawaabay okay hadii idinkana aad jawaab kartiin waa ka sug golaashay macaane
بسم الله الرحمن الرحيم سوق ايش محاوي سوق انا ما سوقاي اوكي talo yariis iga qaado abaayo si waliba u qurux badan tahay haddii aadan nadaafad lahayn ogaaw maankaaga iyo maskaxdaada geli inuusan ninna ku rabin يعني قبلها تل اي سينوسا يعني waxay dhahdi si kasto oo qurux badan tahay hadii aadan naag areeba aad tahay yani nadaafadaada ay xun tahay yani ninka ma ku jecla ay ku wada wiilasha Soomaaliyeed maxay jecel matqana nadaafada leh ayo sax waa gabar aad u nadaafad badan waa jecelna ana naagta nadaafada leh mar walba isku day in aan nadaafad leedahay isku day wiilka kula socda xasaabaha kula qaadana waqtiga isla qaadanaysa inuu adiga ku dhibsan si fiican ma khalaya mar walba afkaaga inaad cadaysatid isqurxisid isnadaafisid weligiis ma kaa tagay gabdho badan hadda waxaa ka dhahaa ala aniga saaxiibkay naag kale iga raacay naagta kale qurux kuma dheera maskax ay ku dheertahay xigmad iyo af macaani ma fahanti ya marka taladeeda qaado abaay okay taladeeda qaado gabadhan taladeeda soo jeedisay waxa waaye taladeed waxa waaye in nadaafada la aad macna gabadhaha markii nadaafad la dhaho waxay markaasi si kale u arkaan amalaha nadaafada waxa ay marsanayaan daawooyin isqurxin iyo make up waxaas oo kale waxaas nadaafada waa tabiici si tabiici ah markaasi inaad isku nadiifisid ay haboon okay taladeeda ninkeeda ay ku tiri habiibi barigaan wada sheekaysan jirnay hadiyado badi keen jirtay oo dalxiis badi keen jirtay maxaa ku dhacay minka macnaha waxay ku wadaan markii hore romance ay sameyn jireen isla socon jireen inta soo guursan ka hor meel kasta isgii jiray madcam soo wada jiray meel jardiin qurux badan oo geey jiray waxba soo gada jiray sidaas ay ka wadaa hadeer maxaa dhacay marka ninkii kulaha ala nina xaasisana anaga ma xaasisan nina xaasido anaga xaasid ma nahay daahede wali ma aragtay musharax markuu doorashada ku guuleysto wali ololaha sii wada gabadha waxay ka wadaa in qofka markii uu musharax yahay ballanqaadyada uu sameynayo يعني waxaan dhisaa kana sameeyaa kaasan yeela kama sameeyna waxaan seela in macna in cirkan soo tula badan markaasi aan biyaha ka dhameeyna iyo waxyaabaha ballanqaadkaas oo dhan gabdhaha markii oo wiilasha iyagana oo waxay u ballanqaadaan insaan ku sameeyaa waxaan ku sameeyaa markaas wax leeyahay tahay yani in lagu soo xirgeliyo leeyahay tahay yani markii la soo xirgeliyo sidaas ay ku wadaa okay madaxweyne oo waxyaabihi isku soo hadho oo ku dhaqmaayo ma bajirto okay maanta videogeena halkan ayuu ku saabsan yahay waxaan fiirsanay muuqaalo yar yar oo markaasi markii aniga aan fiirsado oo fikradii ku dhalinayo oo iga hadalsiinayo ama iga qosolsiinayo videogeena maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya hadii aad ka heshay fadlan like saar hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar hadii aad rabtidna muuqaaladan oo kale aad aragtid dambaleel ka taawo waa anigu Maxamed Xuseen Musisi boy idin leh maca